taariikhda lagu sheegay ilaa Itoobiya ilaa iyo halka gobolkaas xudo meesha la yiraahdo Taleex inta u dhaxaysa wixii dhulbahanto joogay ama gacantiisa ninka waxa ku baxay 40 nin baa ku baxay walaalkii uga aaray waana taariikh jirto oo gabayadeedana insha Allah waa soo feeraya waana keenaya hadii Ilaahay idinka dhigo ninkii oranaya niyow waana laga rabaana halkaas waxa weeye inuu maga ka wada qaadano niyow marka taas iyo ka badan baan dhex martay tana hadda sheegaysidna waa maqlay laakiin sidaan adigu aad wax u haysid xaqiiqatan uma hayo abwaan barleex baa nimankaas isagu laftirkiisu meesha fadhiyo oo waxa weeye laga yaabaa inuu faahfaahin karo laakiin wax jira weeye waa wax aan maqlay laakiin gabayadaas badan oo waliba la isku celceliyay baa jiray oo la isu tiriyay kama jawaabi karo niyo gabayadaasna ma xaqiiqatan waa intaas odayow reer kala yiraahdo hayeeg ayaad hore uga dhawaajisay marka nimayo bal wixii xaqiiqad dhab ah oo aad haysaan ummadda Soomaaliyeed kulli way taariikhda waxba la kala faa'iidaa bal niyo ku soco barleexow adaa mee kale okay hortu anigu deegaankan ka soo jeedo waa hawdka waqooyi waa ilaa Buuhoodle ilaa korkiisa ilaa Gaashaamo ilaa iyo dhulkaas soo dhanban anigu hortu ka soo jeeda nin taariikhda wax badan ka ogna waana reerka geela dhacay waa jilib yar oo madhibaan kamida maaha madhibaan oo dhan waa jilib yar oo kamida oo aan haddaan magacyadooda idiin sheego ama ragga ka dhashay idiin sheego aad toos u garanaysaan geelaas waa ma gabaygan aan tirinayba iyo geelaad ka sheekeynaysid weliba rag badan baa ku dhintay geel qura may hayne dhiig baa meesha ka dhacay oo reerkii jilibkii yaraaye madhibaanka ahaa qoys yaroo madhibaan u ahaa in dhulkii dhulbahanta ay la deganaayeen way ka soo guureen hadda Beledhiig iyo Heegaali iyo dhulkaas waxay degan yihiin Beledhiig iyo maxay ahayd Gowlalaale iyo ilaa iyo maxay ahayd qoladan Habaryoonis degta ina Nuur Muuse aagaasay degan yihiin marka horta dagaalkaas wuu dhacay dad baa lagu laayay geel bay soo dhaceen nimankii geeloodii iyo dhiigoodiiba iyagoo qaba dhulkaasay degeen dhulkiina weli waa degan hadday degan waxaa kamida nimankaas haddaan idiin sheego Suldaan Nadiif Sayd Jibriil suldaanka ayaa kamida waa jilibkiisa hoose madhibaan markuu 10 ka tirsado jilib yaro hoosu kamida ayaa reerka ismariyeen war ma garata taas waa taas tan Siciid Kuule soo noqonaysa war Siciid Kuul keligii muu dhalan Siciid Kuul wuxuu la dhashay 3 nin ayay bax ahaayeen 3 nin bay isku bax ahaayeen 3 nin wuxuu ahaa Sacad Geedi iyo Siciid oo Siciid Kuula 3 nin buu la dhashay 3 nin ba curadna muu hayne wuxuu ahaa dhinka dhexe ay mid yahay Ciise Maxamuud ka mid yahay Sawaqroon ka mid tahay Hawla Qaasin ka mid tahay dadka naga maqan uu reer Faarax Shirwac ka mid yihiin oo jilib hoose ah dadkan ka maqan imika doonaya inay dadkooda ku soo noqdaan war wiilkan baan idin idinka markii horena isqarqarinayo cararay imika sidoo wax ma idinkaga jiraan jidwaaqa maxaa iyagii baa midh baa midh ku jiri kara mise iyaga qarin karaba ya garad waa ku salaamaya dhammaantiinba beegan idinka boobay raalli ka ahaada Barleex iyo ninka la yiraahdo oday aad baan u salaamay waniyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sharaf iyo karaamay leeyihiin aad baan u salaamaya kor iyo hoos rag iyo dumar meel kasta ay joogaan waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed magaca Soomaali qofku hadduu wato uu yahay waa inuu karaamadiisa iyo sharaftiisa meel kasta ku joogaa yeelkeeda nimanka odayaasha oo sharafta iyo karaamada leh oo halka ka hadlaya waa runo niyo cunsuriyad waxa la yiraahdo Soomaalidu aad bay maaragtay waxa la yiraahdo resisti waxa weeyaan Soomaalidii kow ka timiba baan aaminsanahay way anigu waxaan ahay nin aqoon-yahana taariikhahan akhriyaa wax badan baan ogahay wax badanna maaragtay way qarsoon yihiin niyow de nimankii dhulbahante halka waxay ka leeyihiin ninkaas oo isaaqa ama habar jecel ah arrinta maxaad ka odhanaysaa niyow anagoo weligaaba ku naqaanay inaad tahay nin madhibaana oo halkaas madhibaanimadiisa ku joogay Kalaabus
muddadii lagu jiray bay Soomaalidu ku jirtayba dee anagoo saa ku naqaanina tan ma dhibaana in maanta niman dhulbaantaa ay dhahaan ninkaas waa isaaq iyo wax noocaas maxaad arrintaa ka odhanaysaa aad oo baad horta sarkaal barlexo ma maqlaysaa ها si fiican aad iyo aad wan adeeg su-aasha ku hortaada horta waxyaalaha marka adduunka la rogayo wax walba waad ku arkaysaa war Soomaaliyo dhan oo joogta ayaanan anigu isqarin baarleex ayaa iigu qoran waa abwaan Soomaaliyeed waa ninkii la halgamayay gaale iyo xabashi la dagaalamayay ayaa magaciisa aan wataa waa ninkii lahaa ilaahow heerar iyo hawaas la helaa eeg anigu markan gaale la dagaalamayay idinku jifi baad isku cunaysay nimankiina leh waa reer ninkaas reer buu sheeganayaayo eeg anigu hankaygu wuu ka weyn yahay Saliboob baa kow ka ah Saliboob qudhiisu hadduu lahaa bad ma garatay taa marka laga yimid ha Saliboob halkan fadhiyaa lahaa ma garatay may Saliboob saaxiib baan nahay wuu nagu tuurtuuraa anna waan ataan ku tuuraa iska dulqaato dhinaan cuqdad u hayana ma jirto ma aha horta taas waa taas iminka aan kugu daray nimankii dhulbaante mid cilmi la dhaho dhulbaantayo shaacsi oo hor sama ay inta soo kaxaysteen bay dhaheen ninkaas shaashada ka saaro metel ma garatay reerka adigu hadda waa isla dhulbaantii ma garatay halkaasuu magarasa ka caytamaya arrinta ayadana maxaa ka odhan lahayd dagaasi beelihii ma dhawaan u gafayaan anigu dhaydu waan la yaabay maxaa tiri meel ba ku mashquulsanaa maxaa tiri darwiish sargaal haduu ninkan baarleex ayaa u taqaan adigu meelaha ka caysi malahan baarleexan ninkan anugu ma garanayo meelahan ku arkaa dee laakiin oo intaan arkeen ma dhibaan buu sheegnay laakiin baarleex abwaanka hamiyaa jirta adigu ninkaasaan ujeeda baarleex abwaanka haddee ma dhibaan nin ma dhibaan maxantaas aad iyo intaas nacaltiyahan oo 77 dagaaladii ugu waaweynaa muxuu dhaantada xagga Soomaalida ka jebinay aad iyo aad maaga noo dhiibaa dabeynaad ha meeyo sawi ilaadaro anigu mid baan inaad waa idin dhiibinayso يوم خلدان لكن مد با خلدان ابليغا انت قوم وسكن مد با خلدانو يوم بدبانو idinka laftikiinuna muxuu hayaan anu waxaan isiri saaqo way idin garaacayaan markay idin garaacaan waad ka baqaysaan xagga kale aad ku soo aflagaadada George Saliboob reerka ma dhibaan u gafin waxaas waa aflagaad weeye reerka gafka ka daayna adeer waxaasna meesha taal aad iyo يوم ما اeg raggan warraga eegikaay warragan waxa weeye warraga eegikaay waxaan awood adiga waa khalad inaadeen waxa weeye raggani waa rag ma dhibaana cidina adeer ku ciyaaraysaa ma jirto warraggani wallaahi bilaahi tallaahi way kaa cilmi badan yihiin wanaga naga cilmi badan yihiin inaad ershig ninka qabiilada caadi iyaga jawaabaya waa Saliboob ma fadhida adigu Saliboob ma fadhida war ma fadhiyo inaad ma fadhiyo dee hadaba naga dhex baxniyo hawshaada wada way horta aad ku salaamaya nimankaas wax weeyaan iyagu sharaf bay leeyihiin warhana boobina bal horta dhige warhana boobina deeqo muuska ka gal oday baa u jawaabay muuska ka gal deeqo may haysiin hayqas day dhigasho maaga qaado si yar oo qurux badan u hadal maaga soo deji si dawlay okay aan ma ku socdaa daba waa xoogaya ilaa nimankan xoog bay wadaaneen niman baa meesha soo hadlay ninna waxa weeye horta niyo waxaan la yaab ah dadkan su'aal baan weydiinaya ninkii dhahayay ninkaasi ma dhibaan ma habaa la yiri waxaan weydiinayaa in adeerow ma waxa loogu sheekeeyay ama adiga laftirkaaga sida hadalka u tiri baa dadkaani ma hadlaan miyaa lagu sheekeeyay mise iyagoo hadlaayaan arag sidee ku dhici kartaa in bal nin reer kale weeye la yiraahdo base waxa weeye isaaq baa loo socdaayo meesha jambal baa la isu tuuraya labada su'aalood ee su'aalahan ku weydiin waa jambal weeye waxa la rabaa in la isdhaafiyo weeye Saliboob baa badii hataa waxa la rabaa dad waaweyn baan halka naga xir jambalka ninkaas Saliboob maaga qaado waxa ka hadlaysina ka hadalabta aan dheera dhalay hadal de niyo tobageeni inaad su'aasha kale ma tobageeni ku noqonnaa su'aasha kale nimanka dhibaan la dheeraha weydiinayo waxa weeye horta mudgalde Saliboob mudgalde maadu ku bur yaale u kaadi nimanka landheerayaasha su'aasha kale weydiinayo waxa weeye inaadaro sidoo aragtaan magaciini inta niman dhulbaantaa sheegtaan ay ku aflagaadayaan beelaha Soomaaliyeed ee aad deegaanka wadaagtaan ee dalka ka soo jeedaan arrinta ayada sidoo aragtaan in magaciini lagu quraabto oo dadka lagu aflagaad anaa ku sheegaya daba meel yar baan kaaga soo qabanaya ma maqlaysaa oo ku maqlaa ma dhibaan waxa weeye magaca ma dhibaan markii la yiraahdo
waxaa la caynaya boqolaal sano ma fahmaysaa dadkan iyagay cayda horta hadda waxa weeye wax la tahayo ma dhibaan horta dee meel si lagu soo qorto ma dhibaan baasaana fiiri soomaalidu waxay tiraahdaa in lagu hayo maxaa la yidhi in lagu xantay lagu xasuustaa ka horreysa ma garatay taa waxaan u arkaynaa waxa weeye guul talabaad waxa weye nimankaasi maag haddaysan soo qaadanayno si dhaaraktiya toos ah aan laysu abbaarin walaal oo marba wiil yar intuu baxo isagoo dhulbahanti sheeganaya in luuq intuu galo magac ma dhibaan kusoo qorto halkaa cabaado oo ka hadlo waxa weye waa la baalkeeya waa saan annaga horey waxba noogu dhimi weysay haddayse waxba noo dhiman raggaasi fasax weye waana cafi masaamax ku raaxaysta magacaas waxaa rabtiinna ka sheega laga bilaabay xilligaas waxa weye waxa ku soconaysa ku socon laakiin markay dhaaraktiga tagtay ee runta tagto soo fadhiso oo maagga soo qaato raggu waa raggii maaragtay nin walba ninka raggaa baa la yidhi baraarihiisu ka sheekeeyaa dumarna bo'ooda ka sheekeya mayba ninka raggaa wuxuu ka sheekeeyaa baa la yidhi dherbeisa dumarna waxay ka sheekayaan baraarahooda ma garatay nimanka hadday maag soo qaadanayaan si qurux badan bal ha la ballamiyo waqtigay doonta haato nimankaa xitaa soo furfuranaya taariikh saacad ha qabsadaan waqti ha qabsadaan sukaya keenaan hana joojiyaan sheekadan waxa weye ninkii hadlaba ninkaasi ma dhibaan ma aha waa garxejis waa habar jecle waa bahalkii taasi maxay ku tusaysaa ma dadka kuwa fiiri annaga tayna markii laga soo tago ma nimankaa keliya waxa weye yaqaanin dhangadooda aad iyo aad ha saa weeyaan marka hala xishoodo waxa weye wixii markii hadal tahay waxa weye xanafta hala joojiyo annagu intaanu soo galno baanu ciddaan doonnaa cayn karnaa been kuu sheegi maaye qabiil walba oo soomaaliyeed wallaahi bilaahi tallaahi baa ku irsaasaan waxa weye waxaan doona u dulmarin karaa ma garatay laakiin meeshaan dee dadka malaa'ig baa garbahooda saaran dumar caygan iyo qarracdan iyo diin caygan weliba diinta la caynayo adeer xeer rageedna maa kaftar rageedna maa meel rag ku kaftamayaana waxa laba yimaadaniyo marka niyo nimankaas intaasaan odhanayaa odayow saaxiib ma maqashay ninka la odhan jiray xine xiirey ee jaamac siyaad ilmaada real iga raalli ahada dhammaantiinba hoos baan fadhinayaa shaqaan ku jiraa waqti badan baan bixiyey marka waa idinla soconaya oday ku salaaminaa ama duule baarleexo may maqashaa ها وانكم بقلا abwa waxaan ku weydiinayaa ninka jaamac siyaad ee xine xiire la yidhaha mataqaanaa ها وانا قانا ونين قرسومية معها waa yahay soo nin jaamac siyaada ma aha ها maamada madhibaan sharafta iyo karaamada mudani ma xine xiire bay horta dhashay mise aabihii أبيه بدش aabihii bay dhashay حيري بدش xiire bay dhashay ها odaygaa xiire jaamac siyaad baa maamadan qabay madhibaan ها dee labadaa nin baan isku khaldaa inay isaga dhashay iyo inay waxa weye xiire dhashay أبيه بدش حيرينا ونفي عن وأبتيدي أنك فوق absolutely waa dhab ha war horta yow laakiin gabayada dhaadheer abwan idin dhex maray idinkiyo beeshaa dhulbaante baarleexo xaggee laga helayaa ونيو هرتو إيه قفكم مركو مجع دونيو أيو يوتيوب أما جوجل وحول بجليا ما فهمت أنا كنت مجع دوني نمنين مجع يجا إنجليز يطلياني والله أنتوا ببليتي يدي إنجليز كي أمريكا كي يعلن ما فهمت هدي أي صندلات نقطنا صندلات دي وجوه الرئيس رجع سمايستي أن سومالي دوسو هذا القادم وأنك صندلات dadka qaybiyay ee madhibaan kala fogfogeeyay ee koobaad ingiriis uu kamid ahaa talyaani baa kamid ahaa waayo hadday isku duubnaadaan talyaaniga inuu ka saarayo oo qabsanayaan buu ogaa ma fahant waxay ahaayeen dad warmaha samaysta dad faashish ka samaysta dad seefaf ka samaysta dad isku dowladdanoo soconaysay ahaayeen markaasuu qaybi ku sameeyey inuu qaybiyo uu maskaxiyan soomaalidii kale meesha taagnayd ku shuba dadkan way idin qabsanayaan maskaxiyan kula dagaalama sidan kula dagaalama soomaalidiina gaaladii bay garab siisay war ma garata hadday taariikh noqoto anigu ninka halgamay gaal la halgamayay baan ahaa ninka abwaanadiisii isagoo fikraddii awowyaashii qaba xabashi iyo ingiriis iyo kuuba u gabayay ayaan ahay oo gabayadii baarleex baaba ku jira youtube-ka war ma garata markaa qofka markan haddaan taariikh doonayo ama aan doonayo inaan magac ku faano de markaasaan meel walba isdhigdhigi lahaa aan dhihi lahaa gabaygan baan leeyahay iminka gabaygan tirinayayba
dee youtube-ka kumuu jirin sanad ka ban soo gelinay markaan aragnay waxaanay wadaan inay gabayada xadayaan ma fahanta gabayga ayaa idinka xaday lama xadin laakiin waa la xadi lahaa haddaanan 2021 hadda odaygii gabiye laftigiisa aanan youtube-ka soo fadhiisin ma fahanta haye gabayganu 30 sano ka hor buu dhacay gaalkac ayuu ku dhacay ninkii tiriyey baan ku niray bal gabaygii yaan la xadine wuu tiriyey dee waan xafidnay markiiba ma fahanta haye gabayo badan maxaad ka xasuutaa gabayga waa gabaygan imika kulahaa kuwanay cadal caruurta u sidaa sawcigalla maaha ma fahanta haye ha waa gabayga ha gabayga imika gabay kalaa jira aan doonayna inaan hadda youtube-ka iyo googlahaba gelino uu leeyahay uu baanayo uu leeyahay dilay oo toogtay oo tiir ku xidhay waa nacas tolkii taagan yahay ilaahayow talaamiid miyaad u talin weyde ya ilaahayow talaabiib miyaad u talin weyde war ma garan haye inuu dilay buu sheegay inuu tiir ku xidhay buu sheegay inuu wax walba wuu ku sheegay muxuu yidhi dilay oo toogtay oo tiir ku xidhay waa nacas tolkii taagan yahay ilaahayow talaamiin miyaad u talin weyde kabaarleexoo gabay ayuu ku socday ya yuu ku socday gabaygaas ma gabaygan ha ma isagoo dhan oo aan kii horeba codada ka biyey ayaan wallahi soo dhigaya bal ninkii meg ila qaadanaya ha yimaado haddii kale warniyo afkiina aamusiiye ha la yidhaahdo dadkan meelahan ka qaylinaya imika 2021ka harti gelaya ee harti ku baqay sifadee loo tiriyey gabaygaas ya sifadee loo tiriyey qabiilka loo tiriyey ha waa gabaygii 40 geela marka la qaaday ee ragga badan la dilay waa gabayadii la tirinayay ma fahanta qabiilka noo sheeg noo raaca qabiilka markaas 40 geela waa kale waan maqalnay laakiin qabiilka ummadda ha wada maqlaan waa dhulbahante qabiilka yihiin waa dhulbahante waa ninkii imika rag badan baa dilo dil baa meesha ka dhacay markaa dilkiibu ku cadaysay waa kala dilay oo toogtay oo tiir ku xidhay macnihii isagu talaabiid buu ku sheegayaa inay talaabiid ba yihiin ayna te soomaaliba ahayn war ma garata haye markaa kaas waa kaas kole gabayadaasna hadda youtube-kan soo gelinaynaa macal annaku waxaan samaynaa qabiilada warkaale baarleexow su-aal yar baan ku weydiinaya aad baan kuu salaamaya waa digaale aad baan kuu salaamayaa sharaf iyo karaama wey ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana salaan qaaliya baan u diraya mid baa jirta gabayadu waa badan yihiin oo dadka soomaaliyeed gabayada way isu tiriyaan laakiin reer baa tuubaraac loo noqday maxaa dhulbahantaha magaca ku soo celcelinaya meesha aad baan inaadeer horta gabaygu reeruu idinka dhexeeyaa reeraha marka dagaal idin dhex maro ama ficil idin dhex maro wuu idin dhex gelaya iminka gabaygii horeba ma jeerteen iyo wuxuu ahaa nin horogle ah iyo nin muxuu ahaaye reer cigalla ah qofkii waa inuu gabaygii idin dhex maraa ama halxidhaa la yimaadaa